ka President of Somalia madaxweynaha Soomaaliya ugu horeyn waxaan digniin siinayaa cid walba oo haysata baasaboor ajnabi ah in aan wadamada adduunyada aan u soo bandhigayna anaga u mareyno maaragtay United Nations International Organizationada specialized organizations of United Nations waxaan anagoo note siinayna ah in ay advice siiyaan dadkooda oo haysta citizenkooda ama maaragtay baasaboorradooda haysto ku sugan Soomaaliya waxaan leenahay maaragtay dadkaas ma aha kuwa ka turjumayo dhaqanka iyo maaragtay ama ka qayb qaadanaya dhismaha Soomaaliya marka anaga ka dalbanayno jaamacadaha iyo institutionada iyo administrationada iyo anaga ka dalbanayno dad ka qayb qaato dib u dhiska Soomaaliya sidaas awgeed waa inay la soo baxaan ku anaga ka dalbanay waa nidaamka labaad ayaa ka dalbanayo taas waxaan u leeyahay waxa waaye sidii maslaxad maaragtay adduunyada peaceful love society badan lagu sameyn lahaa qayb inay ka qaataan dadka Soomaalida fikirka ugu fiican ama habka ugu fiican waa habkaas hadhowna kuwan aan dalbano oo aan ka dalbanayno wadamadan hadda dadkooda citizenka ah ee joogan Soomaaliya ayaa maaragtay waxay nagala shaqeyn doonaan nabadda anagoo xiriir fiican la yeelanayna marka wadamada dadkoodii la baxay anagoo xiriir fiican la yeelanayno ayaan maaragtay waxaan ka dalbanaynaa dadka aan sheegay oo ama jaamacadaha iskuulada shaqaalaha oo maaragtay citizenadaas wadamadaas ah waxaa ku soo haray maaragtay waxaan xiriir fiican la sameynaynaa qaramada midoobay hay'adaheeda oo idil waxaan xiriir fiican la sameynaynaa international organizationada waxaan xiriir fiican la sameynaynaa regional organizationada qaaradaha goboleed qaaradaha sida u qaybsan sida Afrika oo kale Afrikada Koonfureed Afrikada Waqooyi Afrikada Bari Afrikada Dhexe Afrikada Koonfureed saas amal Asia sidoo kale America Latin America iyo maaragtay North America Middle and North America Europe sidoo kale Europe iyo Great Britain waa la sameysanaynaa sida jasiiradaha aad ku waaweyn sida Great Britain waxaan ayagana maaragtay xiriir la yeelanaynaa oo fiican aan la sameynaynaa intooda badan international organizationada kale marka waa warkayga ugu horeeyay ma aha af Soomaali waxaan ugu hadlayo waxaa horta inaan dadka Soomaalida ah dadka ajnabiga ah ee Soomaaliya dhex joogo waxaa looga baahan yahay inay warqad sharci ah oo inay ka tanaasuleen wadanka ay ka yimideen ay maaragtay la yimaadaan oo ay maaragtay ka tanaasulaan warqad sharci ah oo tanaasul ah oo inay Soomaali u go'aan Soomaali ay yihiin taasna waa ku baraarujinaynaa wadamada marka inta aanan howlahaas isla gaarin qof walbo afka Soomaaliga ku hadlaya ama maaragtay magaciisi idinkana iyo kuwa soo maqan waxaan u sameynaynaa daryeel oo marka aan maaragtay shaqaalahaas aan dalbanayna dhismaha nagala qayb qaadanayo oo hay'adaha iyo wax walbo waxaan dalbanaynaa in culture ama cultural area ama maaragtay meelaha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida laga sameeyo meesha la dhahayo dibadaha wadamada ay ka yimideen meelahaas ha ka howlgalaano meelahaas waxaan ugu sameynaynaa opportunity badan ilaa dugsi sare meel lagu dhigto waa sameynaynaa oo ilmahan la leeyahay maaragtay kulajooyin iyo waxaas bay u leexdeen oo maaragtay oo ma helaano jaamacadaha sarsare la leeyahay waxbarashadooda secondary meesha si loogu soo dhiso oo maaragtay macallimiin af yaqaanaan ay maaragtay duruus ku siiyaan si imtixaanada ay maaragtay marks fiican ay u yimaadaan oo jaamacadaha ay ku heli karaan waxaa kale meelaha hidda iyo dhaqan
dadkii gudaha jooga haddii oo qaxootiga ahaa markoodi hore ama citizenka kale ee originka Soomaaliga ah oo maaragtay communitiyada sida hadda loo isticmaalo waxaa waaye meel oo waxay helayaan fursad oo maaragtay hidaha iyo dhaqankaas oo Soomaalida lagu barto oo dadka lagu baro oo maaragtay على أي حال قاب قرن سيد لقوي قاني إذا الله شقينينا إلا إيو ضدك الصومالي هذا ودمد إيو جوجان وبقول سجاشن دولدود أما ودن والجزيرة إيو كجران كل قوة بمشي إيو جوجان أيا لو دريلا كو جناحسي لو تجي كو خحوتين مود لو تجي كو ما عرفتي ستيزن كلاجة هلا أما ما عرفتي مسيون يقول لي هاي أو ما عرفتي لو نحكي شيء وهذا السلام مع تنوى قد بدي ما أنت أو تاريخ ذا أيتهاي لحية طبنك أكتوبر لابد يكون تدبير طبنك لحية طبنك أكتوبر لابد يكون تدبير طبنك تي ممكن هالجلايو ومركي حدا ما عرفتي أصحابتنا سوفار قيان وحان إذن الله هذا الواكد انتين وحان إذن الله هذا الواكد انتين باي